xubbi iyo xiise dhacay mar kale ayuu xaraka beelay mucjisada reer Argentina ee Lionel Messi oo isaga iyo xulafadiisa waxa sidii bulshadii oo kale ugu xanshirisay garoonka Mineiro xulka qaranka Brazil kulan ka tirsan afar dhamaadka Copa America. weliba xulka qaranka Argentina in ay waxba ku toornayn waxaaba cadeeyay min daqiiqadii 19 ee ciyaarta Gabriel Jesus oo loob coos cun ah oo ka yimid Roberto Firmino ku dhameystiray goolkii xulka qaranka Argentina halkaasi ayana waa cusub ugu bilowday reer Brazil. Dani Alves has it. Leaves a cover behind. Firmino. Brazil go in front. Gabriel Jesus. The wait is over. And they haven't heard a roar like that in these parts in about 5 years since the 2014 World Cup. Brazil lead 1. qaybta koobaad waxaa lagu kala tagay Messi iyo xulkii uu hogaaminayay ee Argentina oo indhataag uu ka soo heray marka la isku soo laabtay qaybtii labaadna dhinac kastaba reer Argentina waxay ahaayeen kuwa xaaladoodu aysan wacnayn siba il capitano Lionel Messi oo shaatiga uu la gashtay laacibka dhiig joojiyaha u ah kooxda Real Madrid ee Casemiro waana uu ku guuleystay joojintiisa goolka labaadna waxaaba u biisay Roberto Firmino xilli shaqadeedana uu lahaa Gabriel Jesus oo ina dhulka la dhacay saaxiibkiisa Otamendi mid kalena dabada dhulka u dhigay fartana ka saaray Firmino macallimka goolasha ee sijeedkana halkaasi waxa uu ka dhaliyay gool kale oo xadaarad leh. Jesus still going, chance here for number 2. Firmino stabs it home. Run from Gabriel Jesus. Breakaway goal from Brazil in control here in the Estadio Mineirão. reer Argentino istaadiyaha Mineiro waxay isaga soo tageen iyaga oo ay u daaran tahay cagtii joogsan wayda marbay ceeb la kulantaa.